wadayaal hadda barbarkayga waxa jooga Cismaan Xasan Mire oo xukuumadihii Soomaaliland xilal ka soo qabtay dabcan magaalada Hargeysa waxa uu hadda ku wataa gaari waqti dheer dabcan xilligii laga joogo uu soo iibsaday gaariyadii ugu horeeyay ee dalka la keenayna dabcan bal gaarigan iyo taariikhdiisa iyo hawlahan oo dad badan ay isweydiiyaan bal nooga waran mudane. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Horta gaarigan waxaan iibsaday 19 bishii December 1981 yaan berbera ka iibsaday isagoo cusub oo markaas soo degay DX buu ahaa. Japan baabuurta ay soo saartay waxa ka horeeyay mid la oran jiray 18R kan mashiinkiisu waa 21R. markaan iibsaday waxaan la tagay Burco magaalada Burco aan la tagay halkaasaan ku watay muddo xil ku hayo jooga gobolka waan ka tagay waxaan la tagay Muqdisho aan ku watay muddo waan kala tago Kismaayo la tagay Kismaayo ku watay muddo dheer kadib dagaaladii baa dhacay xamar baan ku soo noqday gaarigan waxaan kala imid xamar baan kaga imid markii la soo qaxay kadib waa la soo kaxeeyay jidku soo maray Hargeysa la keenay ilaa maanta sidii baan wataa waa 36 sano marka wadiga arkaya wixii la xanaaneeya ee la dhowraaba way dhowrsan yihiin marka gaarigu waa taariikhdiisu waa sidaas maantana gaari kale inuu ku bedesho ma jecli isagii baan wataa wadarkaysaan intaas sano jira qalabkiisa Saudi Arabia laga helaa Hargeysa laga helaa baabuur kale jiro la nooca maanta dalka jooga wuxuu ka shaqeeyaa gobolka Gabiley in Abdullaahi la yiraahdo wata waa gaari casoo karo kala marka taariikhdiisu waa sida adiga sheekay waa intaas laakiin hadda wax waliba way isbedeleen dabcan baabuurtii way isbedeleen nolosh bilaadka iyo wax waliba hawlihii sida isku wada bedeleen wax waliba isku bedeleen dadka qaar ku kula taliya ma jiraan baabuurkan ma iska dhigtid waqti dheerna maadaama uu jiray baabuur dabana ay ka soo casriye ka soo daba baxeen arinta bal ka waran way jiraan dad badan baa ula taliya baalkan maxaad u haysatay iska bedel iska iibi laakiin dadkeenu inta badan taariikhda ma yaqaanaan waxaan taariikhda la yiraahdo baabuurkan marka waxaan u wataa waa taariikh in tusaale uu noqdo qof kasta inuu wixii uu xanaanayo hayn karo marka baabuurta kale isaga ka jecelahay waa manual marka saasan ku wataa aadna raali baan uga ahay maxay ku kala duwan yihiin baad oran lahayd baabuurkaagan oo waqti dheer dabcan soo degay haddana baabuurtan cusub markaad eegto bal arinta ka waran waxa way horta birahaan iyo farsamo ahaanba uu ka sareeyaa uu ka fiican yahay farsamooyinkii ugu horeeyay ayaa ka tayo fiican ka adkaysi badan imaga baabuurkan inta badan baabuur haday isku dhacaan waxaan aaminsanahay inuu baabuur kale burburayo way kan waa birtii asalka ahayd waa taariikhi hore marka taariikhda saasan u hayaa intaad gaariga wadatay wax aad ama dadku kugu yiraahdeen oo ka yaabiyay ama baad adigu fikirhaan aad hayso maxaa kamid waxa kamid inta badan waxay yiraahdaan ma lacag la'aan baa ku haysa mise taariikh baad u haysataa baabuurkan waa laga tigay marka ma iska bedeshid dadku inta badan taasay marka marmaraan ku yiraahaa lacag ma haysto kanun baa ii hantiya saasan kula kaftamaa dadka si wanaagsan baabuurkan laakiin guud ahaan ma jeclid inaad bedesho oo sidaad adigu imika sheegayso bal hadda ka waran hadii dabcan dad badan baa malaha kula talisaad horena waraysiga igu sheegtay inaad ka iibiso bal arinta ka waran way jiraan baabuurtani waxay ka soo xooga socdaan dalka Ethiopia oo jaar ka nahay marka dad badan oo jigjiga ka yimid baa inta badan ay baayaca laga iibi qiimo kasta way gaadhin way steeringkiisu waa kii caadiga ahaa ee tooska ahaa taasay ku socdaan ku wataan marka inta badan waan isku afgan waxaan ku ma iibinayo laakiin dilaaliin badan ba maalin kasta suuq hadaan maro waa lagu soo urura waa la daawada ma iibinaysa qof aan weydiin ma jiro marka arimu saas weeyaan laakiin taariikhdiisu waa baabuurkan aad iyo aad ayaad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay